guddoon caafimaad qaba haddaan guule laga kaashan kaartada galbeedku dhigtiyo geeriday sugiya. casho sharaftan oo ka dhacday xarunta golaha wakiilada ee magaalada Garowe ayay ahayd mid lagu sagootinayay wafdiga gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka Soomaaliyeed oo Garowe kaga qayb galay shirka shanaad ee golaha hafayeenada dalka ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxweyne ku-xigeenka ahna kusimaha madaxweynaha dowladda Puntland, gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya, gudoomiyaasha golaha wakiilada Puntland, Koonfur Galbeed, Jubbaland, Hirshabelle, maamulka gobolka Nugaal, kan degmada Garowe, xogayaha guud ee golaha shacabka Soomaaliyeed iyo marti sharaf kale oo goobta lagu casuumay. duqa degmada Garowe Axmed Barre iyo gudoomiyaha golaha wakiilada Puntland Mudane Cabdixakiin Maxamed Axmed ayaa ugu horeyn hadalla ka jeediyay xafladda. mas'uuliyiinta madaxda Soomaaliya oo ka timina waxaa leeyahay ku soo dhawaada Puntland. hadda waxay la tahay sagootin weeye caawa mar labaadna noo soo noqday mar saddexaad waa idin soo dhaweynaynaa annaguna insha allahu tacaala waa idin soo booqan doonaa. casho wanaagsan, sagootin wanaagsan, soomada wanaagsan, kuna dambe xiisada insha allahu. waan rajeynayaa inaad ku faraxsantihiin inaad noo timaadeen oo aad insha allahu xiisaynaysaan inaan mar dambe kulanno. Soomaaliya waxay soo martay dhibaatooyin badan oo dhinac kasta ah, hase ahaatee waxaa muuqda rajo wanaagsan oo aan ka qabno inaan dib u dhisno qarannimadii, sharaftii iyo midnimadii ummadda Soomaaliyeed. maadaama golayaasha xeerjejintu ay yihiin wakiiladii shacabka, kulankan shanaad ee golayaasha xeerjejinta Soomaaliyeed waa tusaale ka mid ah sidii aanu u hanan lahayn qarannimadeenii shacabka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan u noqon lahaayeen kuwa ku wada hadla, ka wada hadla, kana wada shaqeeya danta dalka iyo dadkooda. gudoomiyaha golaha wakiilada ee Jubbaland Sheekh Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan, gudoomiyaha golaha wakiilada Koonfur Galbeed Cabdulqaadir Shariif Sheekhuna Maye iyo gudoomiyaha golaha wakiilada Hirshabelle Sheekh Cusmaan Barre oo iyaguna hadalla ka soo jeediyay munaasabadda ayaa uga mahad celiyay shacabka iyo dowladda Puntland sidii maamuuska lahayd ee loo soo dhaweeyay. aadaan ugu faraxsanahay waana idinkaga mahadinaynaa casho sharaftan caawa sagootintaana loo sameeyey. waxaa kaloo farxad labaad inoo ah in kulankeeni shanaad ee golayaashii xeer dejinta dowladda Soomaaliya heer dowlad goboleed iyo dowlad dhexeba aan isugu nimid waxyaabihii aanu ka wada hadalnay insha inay guul loogu soo dhamaadeen, sidoo kalena loo ballamay isla markaana la mudeeyey in kalfadhigii kan xigay la isugu yimaado ee magaalada Muqdisho. waxaan kaloo rabaa inaan u mahad celiyo gudoomiyaha golaha wakiilada iyo muxuu ahaay baarlamaankiisa maalmihii aan joognay runtii aad si dhow iyo muxuu ahaay si kalgacal leh muxuu ahaay noo soo dhaweeyey ayagoo matalaya shacabka reer Puntland. runtii aad baan ayagana ugu mahad celinaynaa saddexdii maalmood halkan aan joognay iyo hawshii aan qabanay. runtii waxay ahayd hawl aad muhiim u ah. waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ka mahad celinaynaa soo dhaweynta sharafta badan oo aad u dhiiran oo aan loo kala harin dowladda Puntland madaxdeeda iyo shacabkeeda iyo ciidankeedaba iyo habeen dharaar ay kol taagnaayeen wiilashii ay amniga sugayay madaxdan ay naga tegin. gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya Mahad Cabdalla Cawad oo munaasabada ka hadlay ayaa shacabka iyo dowladda Puntland ku amaanay sida ay mar walba u garab taagan yihiin hannaanka dowladnimo ee Soomaaliya, isagoo sheegay in bilaha soo socda la bilaabayo shaqooyin muhiim ah oo uu ka mid yahay dib u eegista dastuurka dalka, loona baahan yahay inay ka wada qayb qaataan dhammaan hay'adaha kala duwan ee dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada dalka. dowladnimada Soomaaliyeed waxyaabihii loogu heshiiyey ee lagu dhisay aasaaskii dastuurkan aanu hadda haysanno iyo nidaamkan aanu hadda haysanno saldhiggeeda wuxuu ahaa Garowe 1 ama Garowe Principles iyo Garowe 2 iyo Gaalkacyo. shirarkii lagu galay ayay ahaayeen oo lagu heshiiyey in nidaamkan hadda aanu haysanno iyo aasaaska dastuurkan aanu hadda haysanno waxaanu diyaar u nahay inaanu hubinno
sharciga golayaasheeda la hor keenayo inay xukuumadihiinu ka soo wada tashteen oo ay isla og yihiin sababta oo ah meelaha laga fulinayo waxa weeye shuruucdaasi ma aha 17 degme gobolka banaadir waa dalka oo dhan wax walba laga wada tashtay khilaaf ma keenaan madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland ahna kusimaha madaxweynaha mudane Axmed Cilmi Cismaan oo bogaadiyay wada shaqaynta iyo iskaashiga wanaagsan ee ka dhaxeeya mas'uuliyiinta golayaasha xiriirjinta dalka ayaa tilmaamay in Puntland ay taariikh soo jireen oo u leedahay taageeridda wax kasta oo la isugu imaanayo taasi oo dhan waa Soomaalida hadaan anagu nahay reer Puntland oo aanu kolley aanu nahay maamulkii ugu horeeyay oo naf iyo maalba ku bixiyay inay dhisanto Soomaali la helo waxa la wixii isu imaatina la isugu yimaado intaas aan farxad noo ah kala maqnaansho baa annaga noo ah cudur waxaanu ku raacsanahay intii aanu qabnay waxa yiri gudoomiyaha baarlamaanka Cabdixakiim aad iyo aad baad u mahadsantihiin kolley annagu waxaanu diyaar u nahay waxa la wixii la isugu imanayo oo ay Soomaalidu ku hagaagayso historyga waa lahaan jiray nooga baqmaysaan diyaar baanu gudoomiye u nahay waxa la wixii naga beegana waa qaadanaynaa